munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen inta badan bulshada ku dhaqan degmada Caabudwaaq oo ay ka mid ahaayeen odayaasha guurtada dhaqanka ee degmada Caabudwaaq, hooyooyin, siyaasiyiin, fanaaniinta kooxda walaalaha galgaduud ee degmada Caabudwaaq oo horkacayo mudane Daahir oo fursad Daahir Fiyoore iyo sidoo kale saraakiil iyo ciidamo ka tirsan booliiska caalamiga ee dowladda federaalka milgaarka ee Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee Somali Central State oo ku yaala degmada Caabudwaaq. munaasabadan oo loogu dabaaldegayay sanad guuradii ka soo wareegatay xilligii dhidibada loo aasay maamulka Somali Central State ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta waxaa halkaas lagu soo bandhigay heeso, baraamburo, halkudhigyo iyo waliba khudbado kala gedisan halkaas ay ka soo jeediyeen mas'uuliyiin kala gedisan. ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska beesha Caabudwaaq ugaas Axmed Barre Cali oo soo khudbadiisa diiradda ku saaray in loo baahan yahay maamul kasta oo cid kasta oo wadata oo markaasi ka hawlgasha gudaha degmada Caabudwaaq oo isagu soo dhaweeyay maamulkan cusub isla markaana sheegay inay wada shaqeeyaan maamulka Somali Central State iyo maamulka culimada diinka Ahlusunna wal Jamaa markaan looga baahan yahay deegaanka inay ka shaqeeyaan. إلا يسكوها وحن صادوي أولك السنة والجماعة وأنا نقول لسلي وحكستبا هكذا عينه وحي أقبتي إلا قيميه سيدي سينا وشوشقيه. sidoo kale waxaa goobta kulankii maanta isna ka hadlay madaxweynaha Somali Central State Madaxweyne Maxamed Xaashi Cabdi oo asaguna sidoo kale ka warramay warbixin ka bixiyay dadaalka iyo juhdiga dheeriga ay ugu jiraan inay hantaan hoggaanka iyo waxqabadka deegaanka isagoo sidoo kale la sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay inay hesho qarannimo iyo waliba hoggaan sare. marka waa inaan ka cagso asoo bulsho Soomaali ameerato dadka Israa'iil Somali Central State السلام كنت برنامج كان واجب بلابي اللي لو كنا سيالكي هالكودك أنا سميسني أيان رأينا عايزين إن شاء الله كاسو معني سواء هدي على انتشل والوجود تلين مركا إنا انتشلنا واسمر عن سوماسي أنا الوجود تلين dadku qorraxay xoogaa joogan maanta oo dhan waqtiguna waa dheer yahay waxaan rabaa dhowr qodob oo yaryar kaliya inaan ka hadlo barnaamijkan Somali Central State muddadii aan bilownay ilaa iyo hadda meelo badan ayuu soo maray inta hadda Caabudwaaq la joogno waxaa idinla joognaa muddo 2 bilood xasan yara cilmi oo ka mid ah odayaasha guurtida degmada Caabudwaaq ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyay mahad celin u soo jeediyay maamulka Somali Central State sheegayna in maamulkan uu yahay mid wax badan ka qaban doona kana bedeli doona heerka loolanka siyaasadeed ee ka alowsan gudaha degmada Caabudwaaq. maamulka Somali Central State ayaa waxa dhan ka yahay isla markaana ka mid yahay maamulada la doonayay in laga hirgeliyo gudaha dalka Soomaaliya waxaana maamulkan dhawaan looga dhawaaqay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya isagoo markiisii horena maamulkan uu ka yimid ariga Ingiriiska ee magaalada Leicester. sidoo kale maamulka Somali Central State oo muddo dhowr bilood ku sugan gudaha degmada Caabudwaaq isla markaana horkacayo madaxweyne Maxamed Xaashi Cabdi iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Maxamed Xayir ayaa halkaas waxa ay ka qabteen waxa ay ku tilmaameen dhismaha iyo habka maamul wanaagga baarlamaanka ee dawladdu ay yeelanayso 7 wasiir oo markaas laga magacaabay gudaha degmada Caabudwaaq ee maamulka Somali Central State waxaana maamulkaas oo ku qotoma isla markaana habka loo qaybsado uu yahay 4.0 oo wax ku qaybsadaan bulshada ku dhaqan degmada Caabudwaaq. waxaana sidoo kale meesha ay kaga dhawaaqeen isla markaana ay soo bandhigeen xubnihii ay maanta magacaabeen iyo baarlamaanku inta uu ka koobnaan doono ayadoo sidoo kalena ay sheegeen inta dhiman in dib laga soo dhameystiri doono markaana uu ku qotami doono habka hadda ay u magacaabeen ee ah 4.0 ee qaabka wax loo qaybsanayo. حسن ديني عبد الواق.